waxa uu ahaa madaxweynihii saddexaad ee Soomaaliya iyo midkii ugu xukunka dheeraa. koob iyo 20 sano ayuu ahaa hoggaanka dalka iyo xoghayaha guud ee xisbiga hanti wadaagga. wuxuu lahaa sifooyin iska soo horjeeda, waddani dalkiisa jecel, horumar baaxad leh gaarsiiyey iyo hoggaamiye dhisay ciidan aad u xoog badan. halka dhinaca kale uu ahaa keligii taliye, xukun jacayl ku sifaysan, aad u necab dadka ka fikirka duwan, maalin cad diyaaradihii dagaal ee dalka ku duqeeyey dadkiisii, sidoo kalena god mugdi ah ka tuuray dalkii uu muddada dheer dhisayey. muuqaalkeenna maanta ayaynu ku dul istaagi doonnaa taariikhda muranka badan ee Jaalle Maxamed Siyaad Barre. waqtiga iyo goobta uu ku dhashay Maxamed Siyaad Barre xog sax ah oo rasmi ah oo ay taariikhyahanadu isku waafaqsan yihiin ma jirto. diiwaanka xisbiga kacaanka iyo xogaha kale ee taariikhda waxa ku diiwaan gashan in Jaalle Maxamed Siyaad Barre uu ku dhashay gobolka Gedo sanadkii 1919, halka taariikhyahanada qaar ay qoraan inuu Maxamed Siyaad Barre ku dhashay aagga Laas Gacal oo ka mid ah deegaanka loo yaqaano Ceelgaab oo maanta ka tirsan degmada Shilaabo ee dowlad deegaanka Soomaalida intii u dhaxaysay 1915 iyo 1916. labadiisii waalid ayaa geeriyooday iyaga oo aad u da'yar, waxaana korriimadiisa la wareegay adeerkii Xirsi Barre. sanadkii 1933 ayaa Xirsi Barre lagu dilay dagaal reero dhex maray, halkaasi ayuuna mar kale ku waayey adeerkiis oo lafdhabar u ahaa noloshiisa. sanadkii 1936 ayuu Maxamed Siyaad Barre ka soo tegay baadiyaha, waxa uu yimid degmada Dhuusamareeb, wuxuuna uga sii gudbay magaalada Beledweyne. wuxuu iska diiwaangeliyey ciidamo tababar ku geliyey xerada tababarada ee Beledweyne. sanadkii 1936 markii uu tababarka dhammaystay, waxaa loo bedelay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho si uu u qaato tababar dheeri ahna waxaa la geeyey xeradii ciidamada ee ku taalay degmada Xamar Jajab. Maxamed Siyaad Barre waxa uu ka tegay hawshiisii ciidannimada 1939 kadib markii loo soo sheegay geerida laba adeeradiisa ah oo kala ahaa Jaamac Barre iyo Maxamed Barre, wuxuuna aaday deegaanka Ulasan oo ka tirsan degmada Dhuusamareeb oo ay qoyskiisu degganaayeen. sanadkii 1941 markii uu Ingiriisku kala wareegay awooddii dalka Soomaaliya taliskii Talyaaniga oo dagaalkii labaad ee dunida lagu jabiyey, Maxamed Siyaad waxa uu ku biiray ciidankii Ingiriiska, wuxuuna dallacaddii ugu horeysay oo ahayd alifle helay sanadkii 1941. alifkii labaad wuxuu qaatay sanadkii 1944, waxaana waxbarasho loogu diray magaalada Nairobi ee dalka Kenya, dugsiga la yiraahdo Guinness School. tababarkaasi kadib ayuu noqday kormeere koobaad. markii Talyaanigu uu dalka ku soo noqday, Maxamed Siyaad Barre oo saddex xarigle ah waxaa loo qaaday dalka Talyaaniga sanadkii 1952. tababarkaasi ayuu ku qaatay xidigtiisii ugu horeysay, wuxuuna noqday sarkaal. sanadkii 1955 ayuu u dallacay laba xidigle. 2 sano kadibna waxa uu u dallacay darajada dhamme. 1958 markii la dhisay ciidanka booliiska Soomaaliyeed, waxaa Siyaad Barre loo magacaabay inuu noqdo taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed ee gobolka Banaadir. kadibna wuxuu u sii wareegay xafiiska guud ee ciidanka booliiska Soomaaliyeed. 12 bishii afraad sanadkii 1960 waxaa la dhisay ciidankii xoogga dalka Soomaaliyeed, waxaana taliye looga dhigay Generaal Daa'uud Cabdulle Xirsi. Maxamed Siyaadna waxaa loo magacaabay taliye xigeenka ciidanka xoogga dalka dagaalkii Itoobiya iyo Soomaaliya ee sanadkii 1964. ciidankii xoogga oo markaasi waqti yar jira ayaa dagaal la galay awooddii Itoobiya si geesinimo leh ayayna uga difaaceen xuduudaha dalka. muddo kadib sanadkii 1965 Generaal Daa'uud ayaa xanuun ugu geeriyooday magaalada Moscow ee dalka Ruushka. Maxamed Siyaad Barre
ayaana loo magacaabay inuu noqdo taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed wuxuuna u dallacay darajada sarreeya guuto intii u dhaxaysay 1960 iyo 1969 waxaa dalka ka talinayay dawlad rayid ah oo qaab doorasho talada ku heli jirtay nidaamka siyaasadeed ee dalka ayaa ka koobnaa xisbiyo aad u tiro badan oo ku dhisnaa hab qabiil ah hannaanka maamulka casriga ah oo Soomaalida ku cusbaa iyo adeegsiga qabiilka oo aad u xoogganaa ayaa keentay in dawladnimadii cusbayd ay noqoto mid habacsanaan badan leh haykalkii dawliga ahaana uu noqdo mid qabiilku uu si toos ah uga dhex muuqdo waxay arrintu sii murugtay markii Oktoobar 15 1969 magaalada Laascaano lagu dilay madaxweynihii dalka Cabdirashiid Cali Sharmaarke dalkuna uu galay qalqal amni oo aad u xoogganaa ciidanka qalabka sida ayaa faaruqa maamul ee dalka ka dhacay ka faa'iideystay waxayna 6 maalmood uun kadib geerida madaxweyne Cabdirashiid gaar ahaan 22 Oktoobar 1969 taladii dalka ay afgembi kula wareegeen waxaa afgembiga hogaaminayay 20 sarkaal oo xoogga dalka Soomaaliyeed ah iyo 5 sarkaal oo booliis ah waxayna ku dhawaaqeen in dalku uu galay kacaan military xukunkana ay la wareegeen ciidamada qalabka sida waxaa la kala diray baarlamaankii dastuurkii ayaa meesha laga saaray waxaana la mamnuucay xisbiyadii siyaasadda madaxdii dawladdii rayidka ahaydna xabsiga ayaa loo taxaabay dadweynaha ayaa ku soo dhaweeyay caleemo qoyan iyo rayn ciidamadii qalabka siday ee hormuudka u ahaa afgembiga waxayna u arkeen tallaabo geesinimo leh oo horey loo qaaday ciidankii hoggaanka la wareegay ayaa ku dhawaaqay golaha sare ee kacaanka oo uu hogaaminayo Jaalle Maxamed Siyaad Barre kuwaasi oo noqonaya hay'adda ugu sareysa maamulka dalka sidaasi ayayna taladii dalka faraha shacabka uga baxday nidaamkii dimuqraadiyadeed ee curdinka ahaana meesha looga saaray 3 bilood kadib afgembigaasi waxaa la yeegleelay hay'adda nabad sugidda qaranka Soomaaliyeed waxaana madax looga dhigay xubin ka tirsan golaha sare ee kacaanka oo ahaa Axmed Saleebaan Dafle sidaasi oo kale waxaa la sameeyay maxkamadda sare ee qaranka waxaana garsoorayaal ka ahaa xubno ka tirsanaa golihii sare ee kacaanka sidoo kale golihii sare ee kacaanku waxay sameeyeen golo wasiiro ah oo rayid ah oo lagu xulay aqoon iyo karti waxaana lagu dhawaaqay in shaqaalaha dawladda lagu dooran doono maxad taqaanaa ee aan lagu salayn doonin yaad taqaanaa shacabka ayaana aad ugu riyaaqay dardarka xoogga leh ee uu kacaanku la soo shacbaxay falsafadda uu kacaanku ku shaqaynayay waxay ahayd hanti wadaag laga soo minguuriyey filosofiyaddii Karl Marx oo Jarmalka u dhashay iyo Vladimir Lenin oo ahaa asaasihii midowgii Sofiyeetka wuxuu fikirkani ku dhisnaa hab dadku ay isku wada dabaqadii yihiin wax kastana ay dawladdu leedahay waxa la hirgeliyey nidaam iska wax u qabso ah oo lagu dhisay wadooyin dugsiyo xarumo bulsho iyo cisbitaallo sidoo kale waxay dawladdu la soo wareegtay maamulka iyo farakuhaynta bangiyada iyo shirkadaha muhiimka ah warshado wax soo saarana waa la hirgeliyey waxaa horumar muuqda lagu sameeyey wax soo saarka waddanka dhaqaalaha waxbarashada caafimaadka iyo shaqooyinka ayaa si xawli ah u koray Soomaaliya ayaana noqotay dal ka dhex ifaya dalalka qaaradda Afrika dhinac kastana horumar ka sameynaya ciidanka xoogga dalka ayaa sidoo kale aad loo horumariyey waxayna noqdeen kuwo aad u awood badan qaaradda Afrikana kaga jira safka hore dhanka tayada qalabka iyo awoodda ciidankaba kacaanka hortiis waxa waddanka wax lagu qori jiray oo xafiisyada dawladda ka shaqayn jiray waxna lagu baran jiray afaf kala gedisan sida Carabi, Talyaani iyo Ingiriisi maamulkii kacaanka ayaa magacaabay guddi ka soo tala bixiya qoridda af Soomaaliga oo ka koobnaa 22 xubnood doodo iyo aragtiyo kala duwan kadib waxa la meelmariyey in la qoro farta rasmiga ah ee luqadda Soomaaliga waxaana bilowday olole lagu baahinayo qoraalka farta Soomaaliga ololuhu
wuxuu bilowday bishii saddexaad sannadkii 1974 si loo helo awooddii shaqaale ee hawsha qaban lahayd. dugsiyadii ayaa la fasaxay muddo 1 sano ah, ku dhowaad 1 milyan iyo 300,000 oo qof oo isugu jira ardaydii dugsiyada iyo macallimiintii ayaa loo kala diray daafaha dalka, gaar ahaanna baadiyaha, si ay dadka baadiyaha ku sugan u baraan qoridda Farsoomaaliga, sidoo kalena sare loogu qaado heerka qorista iyo akhriska ee dadka Soomaaliyeed. dhanka kale, kacaanka ka hor waxbarashadu waxay ku koobnayd in yar oo u badan dadka talada haya iyo dadka maalqabeennada ah. dugsiyada dalka ka dhisanna aad ayay u koobnaayeen, mana jirin aqoon heer jaamacadeed ah oo ka jirta gudaha dalka. si baahidan loo daboolo, waxaa la furay jaamacaddii ummadda Soomaaliyeed oo 15 kulliyadood ka koobnayd. waxbarashadii waxaa laga dhigay lacag la'aan, waxaana la dhisay dugsiyo badan. horumaradan baaxadda leh waxaa lagu gaaray intooda badan 7 sano ee ugu horeysay curashada kacaanka. ammaanta ugu weynna waxaa qaatay hoggaankii kacaanka oo ahaa Jaalle Maxamed Siyaad Barre, wuxuuna noqday haliyey ummadda u soo baxay waqti ay u baahnayd. dagaalkii 1977 ee dhex maray Soomaaliya iyo Itoobiya ayaa sidoo kale ka mid ah arrimaha xasuusta mudan ee hoggaamintii Maxamed Siyaad Barre. dagaalkan oo saameyn kala duwan lahaa ayay markii hore ciidankii xoogga dalku ku guulaysteen inay gacanta ku dhigaan gobolka Soomaali Galbeed, balse markii dambe huwantii midowgii Soofiyeedku hoggaaminayay ayaa ciidamada Soomaaliyeed dib u soo riixay. waana halkan meesha ay ka bilaabanayso saamaynta adag iyo liicidda hannaankii dowladnimada Soomaaliyeed. marka laga soo tago horumarka baaxadda leh ee uu dalka gaarsiiyey, haddana Maxamed Siyaad Barre waxaa lagu sifeeyaa inuu ahaa keligii taliye, nacab dadka ka aragtida duwan. bilowgii horeba waxay isqoonsadeen saraakiil ka mid ah kuwii ugu saamaynta badnaa madaxdii kacaanka. 2 sano kadib curashadii kacaanka, Maxamed Siyaad waxa uu xiray raggii ugu sareeyey kacaanka sida Jenaraal Salaad Gabayre iyo Jenaraal Maxamed Caynaanshe. 2 ninba waxaa laga saaray golaha sare ee kacaanka. waxaa sidoo kale laga dhigay dhammaan garaadadii ay haysteen. markii dambena waxaa labadooda lagu toogtay iskool boolisiya, iyaga oo lagu eedeeyey inay ka soo horjeesteen mabaadi'dii kacaanka. Jaalle Siyaad waxa uu si indhala'aan ah u qaatay afkaartii shuyuuciyadda oo markaasi si xawli ah ugu fidaysay dunida saddexaad. sannadkii 1975 madaxweyne Maxamed Siyaad ayaa soo saaray xeerka qoyska, kaasi oo simay dhaxalka ragga iyo dumarka, sidoo kalena qeexayay shuruuc badan oo maqaasidda diinta lid ku ah. shacabka ayaa aad u kacay kana dhidhiyey xeerkan cusub. culimmada ayaa ahayd kuwa ugu horeeya ee diiday xeerkan. 10 ka mid a culimmadii ugu cadcadda ayaa la soo taagay maxkamadda badbaadada qaranka, waxaana lagu xukumay dil toogasho ah, halka 18 kalena lagu xukumay xabsi 20 ilaa iyo 30 sano u dhexeeya. 23 bishii koobaad 1975 raadiyo Muqdisho ayaa laga sii daayey war argagax leh oo sheegaya in dil toogasho ah lagu fuliyey 10kii wadaad ee maxkamadda badbaadada qaranku ku xukuntay dilka. kadib guuldaradii dagaalkii 1977 waxaa dalka soo food saaray dhibaatooyin dhaqaale iyo siyaasadeed. xagga dhaqaalaha waxaa si xaddhaaf ah u batay deymihii dibadda iyo kuwii gudahaba. waxaa meesha ka baxay gebi ahaanba kaalmadii dhaqaale iyo militari ee midowgii Soofiyeedka. gudaha dalka waxaa bilowday guux dadweyne iyo caro xagga ciidanka ku baahday. 1978 waxaa dhicisoobay afgembi lala maaganaa in lagu rido xukuumaddii Siyaad Barre, waxaana la toogtay 17 ka mid a raggii afgembigaasi lagu tuhmay. wixii xilligaasi ka dambeeyeyna dalku waxa uu galay jahwareer siyaasadeed iyo jabhado dagaal ku ah dowladda. Maxamed Siyaad Barre ayaa wajahay waqti aad u adag oo ku aadan hoos u dhac ku yimid saaxiibadii caalamiga ahaa ee ay lahayd Soomaaliya iyo xiriirkii arrimaha dibadda oo hoos u dhacay, dhaqaalaha dalka oo burbur ku dhowaaday, iyo nolosha dadweynaha oo ciriiri aad u ballaaran gashay. sannadihii 80meeyadii ayaa waxaa si hoose qayb u daciifay tiirarkii dowladnimada sida amniga, cadaaladda iyo xakamaynta dhaqaalaha. Maxamed Siyaad Barre oo shakhsi ahaan aan ahayn mid ku suntan xatooyada xoolaha dadweynaha ayaa haddana awoodi waayey inuu xakameeyo boobkii hantida dadweynaha ee sida xawliga ah ku socotay. qabyaaladda ayaa gaartay heerkii ugu saraysay. reer kastana waxa uu samaystay jabhad magac qabiil huwan oo dagaal kula jirta xukunkii Jaalle Maxamed Siyaad Barre. gadoodka ugu badan waxa uu ka dhacay gobollada waqooyiga ee dalka,
waxaana dagaal adag uu halkaasi ku dhex maray dadkii deegaanka iyo ciidankii dawladda ee ka amar qaadanayay Siyaad Barre. Maxamed Siyaad ayaa awood xaddhaaf ah u adeegsaday gobollada waqooyi iyada oo aan loo kala meeldayin ciidan iyo shacab toona. diyaaradihii ciidanka cirka Soomaaliyeed ayaana duqeymo arxan daran lagu geystay magaalooyinka iyo tuulooyinkii deegaanadaasi. shacab aad u badan oo aan waxba galabsan ayaana halkaasi si arxan darro ah lagu gumaaday. bilowgii sanadkii 1990 maamulka dalku waxa uu ahaa qalfoof ahaan keliya mid u jira meel kastana waxaa laga dareemayay musiibada soo dhow iyo mugdiga sii baahaya. dilka iyo fowdada ayaana caadi noqotay. jabhadihii ayaa magaalooyinkii waaweynaa irdaha u fadhiistay. macluusha iyo dhaqaale yeeriduna xadkii ayay dhaaftay. 15 bishii saddexaad sanadkii 1990 waxay sabaabulay 114 qof oo u badnaa waxgaradkii dalka sida siyaasiyiin hore, aqoon-yahano, culimo iyo hogaamiyeyaal dhaqan oo dareensanaa dhibaatada soo socota. waxay warqad u direen Maxamed Siyaad Barre si xalka wax looga bedelo. warqadaasi oo la magac baxday manifesto. dadka warqadan saxiixay waxaa horkacayay madaxweynihii koowaad ee dalka Aadan Cadde, Generaal Maxamed Abshir oo ahaa taliyihii ugu horeeyay ee booliiska Soomaaliyeed, Sheekh Mukhtaar oo ahaa gudoomiyihii ugu horeeyay ee baarlamaanka Soomaaliya, Dr. Maxamuud Sheekh Axmed oo ahaa gudoomiyihii maxkamadda sare, saraakiil ciidan, wasiirro hore sida Xaaji Muuse Boqor iyo Dr. Ismaaciil Jimcaale. nuxurka warqadda ayaana ahaa in caburidda shacabka laga daayo, sidoo kalena xukunka gacanta shacabka dib loogu celiyo si loo badbaadiyo dalka. Maxamed Siyaad Barre kuma qancin soo jeedintaasi, wuxuuna xabsiga dhigay 45 ka mid ah dadkii warqadaasi wax ka saxiixay, waxaana lagu oogay eedo ah kacaandiid iyo qarandumis. xabsiga ayaana loo taxaabay. cadaadiska gudaha iyo kan dibadda ayaa gaaray halkii ugu saraysay. kadibna raggan ayaa xabsiga laga sii daayay. Maxamed Siyaad Barre waxa uu ahaa dhise iyo dumiye. dhisme kasta oo maanta dalka waxtar u leh, dhismayaal dawladeed, dekado, aeroboortiyo, jidad, cisbitaallo, jaamacado iyo warshado waxay ahaayeen waxtarkii uu dalka ku soo kordhiyey. laakiin siyaasaddiisii aan jihaynta adag lahayn ee ku dhisnayd xukun jacaylka iyo kaligiitalisnimada ayaa ugu dambayn sababtay in dalku uu burbur galo. ilaa maantana saamayntiisii aan laga soo waaqsan. burburkii kadib waxaa dalka ka dhacay dagaallo sokeeye. waxaa bilowday kooxaysi. magaalo kasta oo dalka ah waxaa qabsaday hogaamiye kooxeed. waxaa caadi iska noqotay dilka, dhaca, kufsiga iyo boobka hantida dadweynaha iyo tangaarka loo leeyahayba. ugu dambayntii Jaalle Maxamed Siyaad Barre waxa uu dalka isaga baxay 27 bishii koowaad sanadkii 1991 kadib markii ay caasimadda Muqdisho la wareegeen jabhadihii ka soo horjeeday. wuxuuna magangeliye siyaasadeed ka helay dalka Nigeria. halkaasi ayuuna ku sugnaa ilaa ugu dambayn 2 bishii koowaad sanadkii 1995 uu ku geeriyooday magaalada Lagos ee dalka Nigeria, waxaana lagu aasay magaalada Garbaharey ee gobolka Gedo.